wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa shaacisay in qoraalka rasmiga ahi ee ku saabsan gacaabida guddiga doorashooyinka dowlad goboleedka Puntland iyo Jubbaland ee maamulaya doorashooyinka heer dowlad goboleed sidoo kaleba midkoona soo gaarsiin arrintaasi qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha loogu ogeysiinayo madaxweynaha sidoo kale ra'iisul wasaaraha ayaa waxa lagu sheegay in diyada ay shaaciyeen maamulada Puntland Jubbaland ay yihiin baalmarsan hanaanka sharciga ahi ee loo maro magacaabista diyadaasi maamulka Jubbaland iyo Puntland yaana xalay saqdii dhex waxa ay baraha bulshada ku faafiyeen magacyada 8 xubnood ay sheegeen diyada doorashooyinka heer dowlad goboleed in matalaya doorashooyinka dalka Soomaaliya warkan soo saartay wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa sidoo kale waxa lagu cadeeyay in arrintaasi ay tahay baalmarsan dhankaasi iyo hanaanka loo maro kaas iyo magacaabista waa sida hadalka ay u sheegeen soo qoreen warkaasi qoraalka ahi Xasan Yuusuf Xasan Diyaabi TV-ga idaacadda bandhiga xarunta dhexe ee Muqdisho.